inta badan maamulada islaamiga ee ka jira wilaayadka dalka ayaa maanta si rasmi ah looga bilaabay qaybinta zakada xoolaha nool aanu ku hormarno dhanka iyo jubbooyinka zaka qaybin ka bilaabatay deegaano fara badan oo ka tirsan degmooyinka wilaayadaasi waxaa warbixintan nooga diyaariyay Cismaan Axmed Dhuubo iyadoo lagu guda jiro mawsimka zakada ayaa waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka degmooyinkeeda si toos ah ugu bilowday qaybinta zakada xoolaha nool meelaha sida tooska ay ugu bilaabatay qaybinta zakada waxaa ka mid ah deegaanada lagu maamulo shariicada islaamka ee hoostaga magaalada Kismaayo isla markaana dhaca galbeedkeeda sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta maamulka wilaayada Kismaayo deegaano badan ayaa waxaa zakada la siiyay dadka masaakiinta ah iyo kuwa fuqarada kuwaasi oo ku nool deegaanada kala ah Beerxaani Baghdad Galaf Mulis Buulaxaaji Istanbul Kaamjiroon Kaliil Feersagaaro Dhalaje Lambar Yaaq Xaluul Afnool Libikuus Xabaaqa Khabri Shariif Cabdidhoore Xaarxaar Aboodin Yaaq Dabeel Jigeyste Qudus Kubikibir Anjeel iyo deegaano kale oo intaasi ka badan intaasoo deegaani aan soo xusnay iyo kuba kale oo ka badan ayaa laga qaybiyay zakada waxaana idaacadda islaamiga Andalus suura gashay in ay wareysto qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay inay helaan xoolo isugu jira geel lo iyo ari maamulka islaamiga ah ee deegaanadaasi aan soo xusnay ayaa sidoo kale waxa ay noo sheegeen in dadka ka faa'iideystay zakada xoolaha nool ee ku nool deegaanadaasi ay kor u dhaafayaan 186 ruux oo masaakiin ah tirada geela ah ee halkaasi laga qaybiyay waxa ay gaaraysaa 88 neef oo geel ah halka sidoo kale la qaybiyay 210 neef oo ari ah waxaa sidoo kale la qaybiyay 112 neef oo lo ah waxaana qof kasta la siinayay 5 neef oo ari ah 1 neef oo geel ah iyo 2 neef oo lo ah haddaba qaar ka mid ah dadkaasi waxay sharxaad ka bixinayaan xoolaha la siiyay iyo sida dareenkoodu yahay magaceeyo waxaa la yiraahdaa Xuseen Axmed deegaanka Kaamjiroon niyo aniga qaaran geel oo waxa ugu soo aaday oo 3 shir ah halkaas oo dadka tuulada degan baan ka mid ahay marka adiga intaas waxna xaaladeyda mar niyo inaan dhaqaaleystaan raba diiraa yiraahdo kayga aad u fiican yahay macnaha walaalaha macnaha waa mahadsanyihiin insha Allah waa daarankaayna waxa waaye barnaamijka macnaha waxa aad baan macnaha ayaan abaali ugu sheegan hayna insha Allah markaada ugu faraxsan tahay ay mujaahidiinta waxa ugu duceynaysaa maadaama xoolo lagu siiyay mujaahidiinta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gaal ilaahay ka dul qaado insha Allah ilaahay yiraahdo mujaahidiinta inuu ilaahay kor ka dhigo dadka islaamka inuu qalbigooda ilaahay soo tumo gaaladana inuu ilaahay ruuxda ku rido ayaan ilaahay ka baryaa firaha ana cali Kaamjiroon waxaa la ii siiyey 5 neef oo ari ah marka waa ka maamulka islaamka ii siiyey hadee ilaahay umadiisa wuxuu ku farid yeelay iska bixiyeen annagana waajib ahaan baa maarta sida shariicada islaamka inaan nala siiyo masaakiin ahaan baa u mutaysana cadaaladana kulay waan arkaynay waa loo qaybiyo baqta nasiib baa lagu qaybinayo kana fulaan ma jiran nin walba nasiibkiisa annagana marka nasiibkayna dadka iimaan leh nasiibkayna kama qoofsane baahidii liisi waa i haysaa qof baa iga xanuunsan oo isbitaal iga jira waxay ii gadmaa inaan ka garta diyaar baan u ah waxay soo hara oo markaas ayda oo mataqaana ama hadda yarta aan gadmeenin oo xogaa iska ruqoogna hadda inaan dhaqaaleystaan haddana diyaar u ah labadaas waa inaan u qaybsado midna waa baahidii markaas la ii sii ilaahay waa tiri kara marka aan u gata inta kale inaan dhaqaaleysto labadaas qaybood aan u kala qorsheeyo dhinaca kalena maanta maamulka islaamiga degmada Badhaadhe ee wilaayada Jubbooyinka ayaa iyagana waxa ay qaybiyeen xoolo kuwaasi la mid ah waxaana ka faa'iideystay dad danyar ah iyo kuwa masaakiin ah kuwaas oo ku nool deegaanada la isku dhaho Jooraha isla markaana laga maamulo degmada Badhaadhe qaar ka mid ah dadkii iyagana ka faa'iideystay ayaa idaacadda islaamiga Andalus ugu warbixiyay أنا عثمان ورو عليها ماشي جو حل هميش دقش بدأ عليه صون هذا أنا كسر هذا أري إلى على قيدنا هذه اللبن فالسين هاي هاي كذي الله أري الواشنة تمام تفرحي وأنا هوش له دمعته في زمان تسوي أنا كانوا وأنا تبغى أنا هوش له هرجش ما هي محلك قبل الساعة ولا مركب مدير الشامس ودقال السنة ساعة أقال يوم بيع لما تبغى يكلموا والله لأن شو الجيران كصار لأن شو جامع محمد آدم باليراها يوم المسافين أنا كوميشن الكتيوبي نفس المساهمين إلهي بان مكان
waxayna siiyeen lo iyo ari aniga waxaan qaatay 5 neef oo ariya yaan qaatay 5 neef oo ariyaan qaatay marka haddii ilaahay idmo shantaana aad baan ugu qanacsanahay iyagana waa u ducaynayaa xarakadana waa u ducaynaya nin naafaha baan ahay oo gacanka waxay ku maslaxaasaan ahay saasaa la iisii waxaana lagu wadaa degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka in ay ka bilowdaan qaybinta zakada xoolaha nool waxaana sanad kasta ka faa'iideysta boqolaal dadka muslimiinta ah kuwaas oo Allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku sheegay in zakada la siiyo dhanka Hiiraan iyaduna zako laga qaybiyay waxa warbixintan looga diyaariyay walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا مشروع قيبinta zakada xoolaha nool saaka waxa uu si rasmi ah uga bilowday degmooyin iyo deegaano kamid ah wilaayada islaamiga Hiiraan inta badan deegaanada dhaca galbeedka wilaayada islaamiga Hiiraan ayaa laga qaybiyay mashruucaasi zakada xoolaha nool dadka masaakiinta fuqarada isugu jira ee la siinayay zakada ayaa qof walba waxa ku soo beegmayay dhanka ariga marka loo eego ilaa 5 neef halka geelina qofkiiba 1 neef oo geela la siinayay hawsha qaybinta zakada xoolaha nool ayaa sidii loogu talagalay waxay uga socotay degmooyin iyo deegaano kamid ah wilaayada islaamiga Hiiraan deegaanada sida weyn looga qaybiyay zakada xoolaha nool waxa kamid ah degmada Buqa Qable deegaanka Mukayle iyo deegaanka Show iyo deegaano kale oo wilaayada qayb ka ah degmada Buqa Qable goob zakada lagu qaybinayay ayaan tiri waxaana ii suur gashay qaar kamid ah dadkii fuqarada iyo masaakiinta isugu jiray ee zakadaasi wax laga siiyay inaan wareysto Allah umahad celina Allahi ii waajibiyay zakadan muxuu ahay muslimiinta qaniga ku waajibtay Allahi ii waajibiyay ayaan umahad celina thumma markaas dabadeed walaayada islaamiga ah ee xaqan sidii tooska hadiisiisi ayaan umahad celina muslimiinta Allah qawiyeeya gaalada Allah jibiya Ameerikaanka dhulka Allah la gooya doofaan Allah ku rida dhul gariir ha ku dhaca alxamdulillah ilaahay muslimiintana kor ha ka dhigo maxalisi marka saaka waxa liisi hal dhaqaal ma ogi aan u qalmin ba in la gadaba aan u qalmin walow ay ayada kaligeed ugu tahay hal aan u qalmin in la gadaa iyo saakiliisi walaayada isisay ay ka waran bal saa ugu faraxsan tahay فرحي لما الحساب كان حساب ملاكاس واحد كاس كبحي وحساب كاس حد كاس كجدبي مركا اساس وايا waxaan maadu celina walaayada islaamiga alxamdulillah rabbil alamin saaki geel meeshaan uu gudoonsay ilaahay idankiis ayaan u mahad celinayna marka alxamdulillah rabbil alamin hal geel oo 4 jir ah liisi dareenkeeda aad oo maanta u sareeya alxamdulillah rabbil alamin ilaaha ma ku mahad islaamku waxaan u doonaynaa ilaahay kor ka dhigay gaalada ilaahay asjiriyo waxa la yiraahdaa magaciisa Axmed Sheekh Mudaf waxaana ka tirsanahay Buqa Qable degmada Buqa Qable walaayada khayr Allah siiya waxa ay siisay 5 neef oo ari ah 3 ircad iyo 2 idaa liisi khayr Allah siiya kor Allah ka dhigay walaayada Hiiraan ee Buqa Qable kor Allah ka dhigay marka dareenka ka waran aad baan faraxsanahay aad baan faraxsanahay maanta maxaa jira xaaladda waa iska qalbsaneedii walaayada ilaahay noogu soo qaaday waxaan ma sha Allah meeqa neef lagu sii shanna hay saykaliin marka 3 ircad iyo 2 ida haye alxamdulillah ilaaha ku mahadsan haye ku sii walaalaha muslimiinta haye bal ka waran dareenkaaga alxamdulillah fiican haye أنا الحمد لله إله أنا نبعي haye لا قوم هسه haye hadda ka hor ma qaadatay hal mar ساش وحن جوا مال بقى قبل يرى مقرد haye إيري زكاها نسبي إيه غيب متقنا شن نافو إيري مقرد haye shanta maxay kaliin شنت سدح إرعد إيو لبا إذا واي مقرد ma sha Allah haye markuu waa ku faraxsanahay aadan u faraxsanahay bariga meeshan waxa ka dhacday bishaara aan sheegi karin maqrad aad iyo aad marka waa anaguna Allah noo raji geliyo oo mataqaana khayr Allah noo geliyo dadkii dhiibiyo saas jidka soo galina mataqaana Allah la ka kaalay waxay wadaan
haye xoolaha hadda lagu siiyey maxaa ku qorshaysay waaba dhaqaaleysanaabo waa dhaqaaleysana xoolay waa dhaqaaleysana ina adigana sanadka dambe aad ka bixisida xoolaha hadda waxaan jeclahay dib ka dhashan waaye in mataqaana ay iska antada kalo 15 gaaraan oo mataqaana aan ka bixin fiis ma sha Allah marka dareenkaaga waa ku faraxsanahay bilihii la soo dhaafay ayaa waxa wilaayada ka socday oo loo ballaaran oo zaka ururin ah iyadoo laga qaaday dadka xoolahooda zakadu ay ka goodo dadka saaka la siinay zakada waxa ku jiray kuwa sariir fuul ah oo aan dhaqaaqi karin kuwa aan waxba dhalin oo wiilaawo ah oo kuwa curyaamin ah iyo ku jirada ay dilootay aad ayayna u duceynayeen zakada ayaa markii la soo ururiyo waxa loogu talagalay in la siiyo dadkii quraanka lagu sheegay oo ka kooban ilaa 8 sinfi sida masaakiinta fuqarada mujaahidiinta dadka deemaysan caamiliinta dadka la soo dumayo kuwa la xoreynayo iyo musaafirka si kastaba ha ahaatee dadkii masaakiinta ah ee saaka zakada loo qaybiyey ayaa si weyn u soo dhaweeyey howlahaasi zaka qaybinta ee loo fuliyey dhanka iyo baa iyo bakool oo ka mid ah iyaduna meelaha zakada laga qaybiyey waxaa warbixinta nooga diyaariyey walaalkeen cali aadan cabdullaahi cali yare dad badan oo masaakiin iyo fuqara isugu jira ayaa maanta ka faa'iideystay qaybinta zakada xoolaha nool oo si toos ah uga bilaabatay degmada Bulufulay ee wilaayada Baa iyo Bakool xoolaha la qaybinayay oo isugu jiray geel lo iyo ari ayaa qof kasta oo ka mid ah dadkii xoolahan loogu talagalay in la siiyo waxa uu helayay 5 neef oo ari ah amba 2 neef oo lo ah ama sidoo kale 1 neef oo geel ah dadka masaakiinta iyo fuqarada isugu jira ee maanta la siiyay xoolahan zakada ah waxa wajigooda aad looga dareemayay farxadda iyadoo dadka badankii ay sheegayeen inay ku xoolo beeleen abaartii dalka ku dhufatay sanadkii la soo dhaafay intii ay socotay qaybinta xoolaha zakada ayaa inoo suurtagashay in aanu la hadalno qaar ka mid ah dadkii xoolaha zakada maanta la guddoonsiiyay bismillaahir rahmaanir rahiim geemadiisa inta munafirnga مجاهدين كل الله كوير آمين قرب شكر الله كوير آمين ما هو مسلمين تقالنا لا جبي وما هو إذا كفر أنت منافرين نسي ما شاء الله ما قفتين ما هو هم لما قفل لما قفت منافرين نسي ما شاء الله ما شاء الله إذا كفر لا مجاهد تقول سين نعم آمين جزاك الله الرحيم إلهي لنا واحد كهاي مجاهدين إسلامي ونقار كارتمان تسنف إلي أنا نتي آدم علي أهاي سيسي إلهي وينا واحد كهاي وحن قلتنا إلهي قعنتوت كل كدقوا عدو بهوستوت بريا جريه وأنه فهمين إلهي أغلى الدون بقوا فهمين مجاهدين إسلامي إلهي هقولي شنف أريلو شنف أريلو سأقول فرح سنة بقول كيف بقول يا فرح سنة من دقات هاي شنف أريلو ما قدوسيو تلي طلبات تنجرا إن ما أنت شنف أريلو مملك إسلامي شرفت له ويقدوني سيسي يعني إلهي ما حديث شكر أن أقول نقي أنا أيضا أود دعاء أفرتق أود دعاء سمد أود دعاء ولب عادي وين أقمنا إلهي ما حد لا ما أنت إبكي هاي إني ما أنت يوفق يا أم بينا إلهي إذن كيس إلهي هقول يقول كر الله كدقة وهي إلك السعود لك السعود قالوا دم إلهي داريا إلهي مجاهدين إسلامي كلها كدقة ساسا جرتة ساسا كد دعاء أبو جد ولا يبي بقول سو أنت سان هيريا بياتله أنا أبرك أو أعطي كودي أوتي ما حد إلهي أسأل لي ما حد إلهي أسأل لي كذب ولا يتبي بقول شهيات أو بريمك كل وارد أو لو يبن يا أقام حق بلتي أكستبي ما حد بدل الدس قال يا كفر الله هرجو أريد لما قفنا وحنا لسه توقف وعرية كله ولا إن شاء الله كله كر الله كله marka meel kasto xoolihiisa kida la qeybinayo waay wilaayada qaar Allah si toban la qeybinayo siis ma sha Allah oo baahida u qabtay in shan neef ari loo sii baahidi wallahi kulay hadda baahidi oo qabno ma sha Allah shan toban neef aan sii marka qaar Allah sii mujaahid meel kasto joo ilaahay kor ka gaalo ilaahay jiri insha Allah bulfulay meelkiisa geela lisay ilaahay mujaahidin gul saar ma sha Allah ilaahay gul ilaahay sak farasan iidan farasan ma sha Allah قولك آمين قلبي ما شاء الله si kastaba tani waa fadli iyo nimco gaar ah oo Allah uu siiyay dadka muslimiinta ee ku hoos nool shariicada islaamka mujaahidiinta ayaa ku guuleystay in zakada ay ka soo ururiyaan dadka ay ku waajibtay sidoo kalena ay siiyaan dadka Allah uu tilmaamay ee masaakiinta iyo fuqarada ay ka mid yihiin